daawadayaal wardegdega dalka Turkiga dadku markay Soomaalidu ku cusub yihiin ama qurbaha ka yimaadaan waliba dadka Soomaaliya jooga xoogay maskaxdu ay u degan tahay iyagoo xoogay wadankii ka yimi oo wadankan si degan bay u yimaadaan balse dadka qurbaha ka yimaada waxaan idin daawasiin doonaa muuqaal magaalada Istanbul muuqaal markaasi taksiile Turkiya iyo sidoo kale gabdho Soomaali ah oo luqadda Ingiriisiga ku hadlay laakiin dad Soomaali ah ayaa waxay sameynayaan iyo ninkii Turkiga ah ayaa waxa ka dhacay isfahan waa la xidha meesha uu wado inta badan horta muuqaalka horta idin daawasiinayo sina share gareeya dadku Soomaaliyeed marka ay qurbaha ka yimaadaan ee dalka Turkiga imanayaan waa in inta badan ka digtoonaadaan arrimaha la xidha wadanka Turkiga yani dadku wala sida dadka Turkidu yani wax maskaxda kaga sii qayliya yani ma awoodayaan waa dad marka hay marka muuqaal ba horta idin daawasiinaya gabadhan iyo sidoo kale taksiilahan waxa ku kala dhaca. Yes, with a 10-minute do this. But if you don't come in taxi, normally I'm going to ride. Now you take the traffic and you say we go out. Huh? No, drive us. How long will it take then? Oh my God, Semuna, it says 20 minutes. It's not 20 minutes. Can you show me? Yeah, we go. No, not 20 minutes. Maximum 6 minutes. How? 6 minutes? 21 minutes it says. Look how it's going. Is it not Says with 2 minutes. أنا ربينا الصعود ما يصير دايسين. You stay in the cab, let me walk. Listen brother, she will stay, I will walk. I told you 6 minutes, you say 20 minutes. But why is he saying 20 minutes? Because this is wrong. Why are you angry? Okay. Look, Agwalalo, it says 9 minutes walk, 8 minutes walk, 10 minutes drive. And it's congested. I don't go for the, you stay. I don't know how to see you, I can't stay in this traffic. Man. Are you kidding me? I can't stand this traffic. You didn't tell me traffic like this. Go out. 1 hour and a half. Arama ödemeden git. horta marka hore waxaan markaas ka cudur daaranayaa gabadhan yani sida ay muuqata ma oga baan u maleynayaa muuqaalka gabadhan laga duubay lacala hadii qof garanaya gabadhan oo kale xag hoose ku soo mishin gare sidoo kalena waxaan ka cudur daaranayaa inaan gabadhan muuqaalkeeda iyo sidoo kale xogtan idin la'aan taksiilahan uu soo fasaxay qof inta badan caalamka inkastoo ka dhacdo taksiilayaasha taksi kasta oo raacid kaamarad baa dhexdiisa ku xiran muuqaalka waxaad ka fahmaysaa dalka Turkiga dadku markay yimaadaan Soomaalida siiba kuwa qurbaha ka yimaada Mareykanka Canada iyo wadamada waaweyn xoogay kuwa Europeanka Jarmalka caatada iyo Faransiiska iyo meelahan yani ma buuq badna oo waxay aamin og yihiin Europe dhibaatada ay ku tageen ama mid ya taariikh ku galay ama dhibaato oo Turkiga isku hawla laakiinse dadka Mareykanka ka yimaada waa dad xoogay si guud iyo Mareykanka iyo Canada iyo wadamada waaweyn waa dad xoogay maskaxiyan miyad oranaysaa buuqooda kadeedkooda waa dad dhib badan marka wadanka Turkigana qofku marka uu yimaado xaaladiisa inuu la qabsado anagoo kala duwan iskala joognayo jooga Allah hayso weeye marka gabadhana wax khalad ma aysan sameyn dhowr bay ahaayeen laakiinse waxyaabahan oo kale waxyaabaha inta badan dhibaatooyinka sababa marka dadku inay ka digtoonaadaan muuqaalkana marka si shir gareeya dadka laga yaabo inay dalka Turkiga marun doonayaan inay yimaadaan si ay taksiilaha kale waa macquul wada toos asagoo doonay inuu ka bixiyo ayuu meel yar ka saaraya si salahan meeshaas oo kale 200 oo talaadu ku geenayso 250 ku geeyo camal waa taksiilayaasha caalamka oo dhan bayna taasi ka sameeyeen oo de u barada caalamka oo dhan ba xoogay meelaha yar ka kooban hadii meel ay ka leexinayaan kala ama traffic oo kale marka intiba kuwan isku fahmi laayin ba laga yaaba muuqaalkana taksiilaha ayaa soo fasaxay oo aan bogiisa markaasi uu TikTok ku leeyahay ka soo qaatay waa mahadsantii saaxiibayaal